برواقدا تهبكي وبيرها برهنا تبعدا اتكلا واحد كباردنا بايقا مقويسي بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو idin bayaanshe buudo hadalku wuxuu yahay samalay baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada taadkiyo birahana tabcada cid kale waxaad ka baridana baayka ma goysi ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ahaan jirtay bulsho xoolo dhaqato ah isla markaasna ay noloshooda ku tiirsanayd xoolaha nool oo kaliya waxay ahayd bulsho hadba u guurta halka ay daruurtu ka horto taasina waxay keentay in si dhib yar loo gaarsiin waayo adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin maadaama ayna lahayn goob rasmi ah oo loogu soo hagaago sidoo hore oo sheegnay waxaan qoraa in waxaan qorshaysan dawladda federaalka oo qorshaysan dalka Itoobiya inuu noqdo ama ka qayb galo wadamada dhaqaalaha u dhexaadka yahay taana waxaa laga qayb gali karaa kaliya waa xoolo dhaqato beeraleydu in beeraleydu noqdo oo la beerto lacag iyo hanti waxaa dhulka ummadda furan wixii la gashay haddaba xukuumadda deegaanka oo taa ka duulaysa ayaa waxay go'aamisay in bulshada xoolo dhaqatada ah loo bedelo xoolo dhaqato beeraley isla markaasna la dajiyay qaar badan oo ka mid ah dacallada webiyada deegaanka haddaba xukuumadda oo sii xoojinaysa sida ay bulshadu kor ugu qaadi lahayd wax soo saarka beeraha isla markaasna looga maarmi lahaa wadnooyinka dibadda laga keeno oo uu deegaanku u noqon lahaa mid iskaga filan dhanka wax soo saarka beeraha maadaama qorshaha kobaca iyo isbeddelka wejigiisa labaad xoogga lagu saari doono dhanka beeraha iyo wax soo saarka isla markaasna deegaanka laga samayn doono 96 biyo xidheen oo loogu talagalay in lagaga faa'iidaysto dhanka waraabka beeraha ayaa waxay xukuumaddu cagaf-cagafta beeraha lagu qato oo fayska koobaad uu yahay 200 oo cagaf isla markaasna 150 cagaf la baxshay halka fayska labaadna uu yahay 200 oo cagaf dhawaan la keeni doono waxaana 150 cagaf ay xukuumaddu guddoonsiisay shakhsiyaadka hormuudka ee natiijada wanaagsan ka keenay dhanka wax soo saarka beeraha iskaashatooyinka beeraha oo laga soo kala xulay gobollada iyo degmooyinka deegaanka mas'uuliyiintii hore oo ay ku jiraan madaxweynayaashii iyo madaxweyne ku-xigeenadii hore odayaasha dhaqanka ee deegaanka iyo ururada dhalinyarada cagafyadan oo ay ku baxday miisaaniyad gaaraysa 161 milyan oo bir ayaa loogu talagalay inay bulshadu kaga faa'iidaysato dhulbeereedka 60 milyan ee hektaar dhan ee uu deegaanku leeyahay waana kan ku-xigeenka madaxa xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdinuur Calow Axmed oo arintaasi ka hadlaya sida la wada ogsoon yahay deegaankeenu wuxuu leeyahay dhul dhan 6 milyan oo hektaar oo ku habboon wadqana falashada beeraha inkastoo ilaa hadda dhulbeereedkii madqana laga faa'iidaystay uu yahay madqan uu kariyar yahay 15% haddaba si aan madqana uga wada faa'iidaysano kheyraadka madqana dhulka ee deegaankeena isla markaana madqana laga faa'iidaysto webiyada iyo madqana dhulka hodanka deegaankeena xukuumaddu waxay madqana ay bulshada madqana beeraleyda ama madqana xoolo dhaqato beeraleyda deegaanka loo soo iibiyay 200 oo xagafyo ah oo madqana waqti xaadirkan deegaanka soo gaaray ilaa 150 xabo ah oo madqana 90 kamid ah ay yihiin kuwa waaweyn 60 ay yihiin madqana xagafyadii yaryara miisaaniyada ku baxdana ay tahay in ka badan 160 milyan 162 milyan ayaa madqana ku baxday wax soo saarka madqana ujeedada laga lahaa ee xagafyada lagu keenay in madqana la kordhiyo wax soo saarka dalaga madqana sanadihii la soo dhaafay 5 sano ee la soo dhaafay GTP1 ka waxa madqana laga faa'iidaystay dhul dhan madqana 1.5 milyan oo hektaar ayaa madqana laga faa'iidaystay taas oo u dhiganta 15% si madqana hektaarada kor loo qaado wax soo saarka deegaanka madqana kor loo qaado ayaa madqana xagafyadii la keenay ahmiyada iyo ujeedada xukuumadda DDS dowladda deegaanka Soomaalida oo dejisay xagafyadana waxay sal u tahay in madqana saboolnimada laga tirtiro isla markaana madqana dhalinyaradu ay ka faa'iidaystaan iskaashatooyinka kala gedisan ay ka faa'iidaystaan madqana haweenkana ay ka faa'iidaystaan isla markaana madqana waxay madqana door muhiim ah ka qaadanayaan hirgelintii madqana qorshihii 5 sano ee soo socota ee GTP2 ga
iyo madqana sidii loo tirtiri lahaa saboolnimada iyada oo madqana xoog la saarayo abuuritaanka madqana shaqaalaha haday abuuritaanka madqana shaqada hadii madqana ay tahay xagga dhalinyarada iyo xagga haweenka xoolo dhaqatada ama madqana xoolo dhaqato beeraleyda ah sidoo kale waxa madqana hubaal ah in madqana sanadihii hore ee la soo dhaafay 5 sano wax soo saarka deegaanka ka soo go'ay waxa weeyaan 20 milyan oo kintal ayaa madqana 5 sano la soo dhaafay laga soo goostay waqti caadirka madqana sanadkii la soo dhaafay waxa la soo goostay 10 milyan oo kintal iyadoo waqti caadirka anagu ka faa'iideysanayna maashinarigan xukuumaddu ay madqana deegaanka keentay sanadka soo socda 2008 xafiisku wuxuu madqana dadaal dheer ugu jira sidii madqana wax soo saarka deegaanka la gaarsiiyo 20 milyan oo kintal in la soo goosto sanadkan ayaa madqana lagu jira sidoo kale iska xagafyadan waxaan siinay iskaashatooyinka modelka ah ee madqana ku deeshada mudan oo wax soo saarka dalagga isbedel ka keenay iyo madqana shakhsiyaadka madqana dhinaca horumarka iyo madqana xagga biyaha dayta iyo xagga madqana beeraha isbedel la fiican keenaya madqana lagu abaalmariyay iyadoo madqana ay ku jiraan maamuladii hore ee deegaanka mas'uuliyiintii hore ee deegaanka madaxweynayaashii hore ayaa madqana la siiyay marka waxa madqana aanu ku rajaweynahay in wax soo saarka deegaanka madqana la gaarsiiyo sidii madqana deegaanada Tigray ay madqana wax soo saar lamida inaan madqana aan soo goysano oo madqana la gaarsiiyo ayaa madqana ku rajaweynahay marka xafiiska xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dawladda deegaanka Soomaalida wuxuu madqana dadaal dheer ugu jira sidii madqana bulshada xoolo dhaqatada ay madqana ay noqdaan bulsho madqana xoolaha ka faa'iideysta isla markaana madqana dhanka beerashada naftarkiisa ay madqana ka qayb qaataan inay madqana xagaas ذكر واحد كبردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو idin bayaanshe buuda hadalku wuxuu yahay Soomaaliy baraaruga hawsha uu bareero la soo baxa barwaaqada taabkiyo birahana tabcada ذكر واحد كبردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو madaxweynayaashii iyo madaxweyne ku-xigeenadii hore xilalka deegaanka uga soo qabtay ayaa ka mid ahaa xubnihii cagafyadani gudoomiyay iyagoo loo ballan qaaday in 3 xilli wax soo saar laga caawin doono dhanka falashada beeraha bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Khadar Macallin waxaan ka mid ahay mas'uuliyiintii hore ee deegaanka madaxweynaha ka soo ahaan jiray waxaan maanta farxadii ah inaan xafladan lagu gudoonsiinayo beeraleyda iskaashatooyinka deegaankeena يا أشخاص هرمود كه عن كسر قيب قالوا وأنا أرين أي تاريخ ذو نقص سنتي أو عمرك أنا نقص سمي إن ديجان كنجا أو دذلك هرمركة كنت هاجري بالشديسة إسلام مركز نقلب كي وجودن بيا عصر جاه بيرلي ذا كالمينية عن سوق النواح إلهي لقوا مهذيو لما نضلت كصومالي ذو إن إلهي كم هذيان أيها اللب هاي وأنا أرين دذلك سوق سمي maamulkeena iyo madaxweynaheena Cabdi Maxamed Cumar alxamdulillaah rabbil caalamiin baan leenahay waxaan ballan qaadaynaa inaan kaalinta nagaga aadan dadajinta horumarka iyo gaar ahaan beeraha
inaan qaybtanada ka qaadan doono aad iyo aad baad mahadsantihiin. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga waxaa la yidhahdaa cali cabdi ciise, waxaan ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenadii hore ee kililka. marka farxad weyn bay noo tahay munaasabaddan aan joogno nalagu guddoonsiiyey cagaf-cagafyada. marka aad baan runtii u faraxsanahay. waa heer dowlad deegaanka Soomaalidu uu gaadhay oo aanan islahayn wuu gaari doonaa, laakiin ilaahay baa igu simay kililkaygii oo dadkiisii cagaf-cagafya siinaya. waa wax ku cusub taariikhiyan anigu intii aan jiray kolley wadamada saddexaad ama xataa dowladaha waaweyn oo iyagoo waa la amaahiyaa dadka donation. kolley anigu ma arag intii aan dowlada soo arkayey dowlado dadkeedii siinaysa cagaf-cagafyo. marka annaga cagaf-cagafyadan wax badan baa nooga horreeyey oo dowladda xisbigayaga iyo madaxweynaha iyagu ay noogu tabaruceen annagoo madaxweynayaashii iyo ku-xigeenadii hore ah. marka dhinaca wax soo saarka ayaa naloo jiheeyey, beero ayaa godayna laga siiyey, meelo badan oo kala duwanna waa nalaga siinaya. marka aad baan runtii ugu faraxsanahay. dowladda iyo xisbigana aad baan ugu mahadnaqayaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. وبحر برواقضة ذهبتي وبيرها بيرهنا تبعدا اتكلا واحد كباردنا بايكا مكويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو